kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub aan kaga hadli doono kooxda kubadda cagta Barcelona hadaa janaalka Barca 250 ku cusub tahay subscribe saar si ku soo gaana muuqaalada soo socda muuqaalkan shirgareeya la wadaaga taageerayaasha kooxda kubadda cagta Barcelona waad maasantiin isku soo noqod wanaagsan saaxiibayaal haddii aan ku bilowno muuqaalkeena waxaan kaga hadli doonaa kooxda kubadda cagta Barcelona hal ciyaartay tartanka xiisaha badan UEFA Champions League waxay la ciyaartay koox lagu magacaabo Fenerbahce FC ciyaar ku soo dhamaatay 5 gool kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa ku ciyaaraysa garoonka Camp Nou Stadium haddii aan fiirino shaxdii xal ee ku soo gashay kooxda Barcelona goosha wuxuu ku soo bilaaday Neto afar difaac waa Sergio Roberto BK Lenglet Desti khadka dhexe waa Pjanic De Jong weerarka waa Ansu Fati Coutinho Trafico iyo Leo Messi goolka koowaad ee Barcelona waxa uu bilaabay laacibkooda Leo Messi goolka labaad ee Barcelona waxa uu dhaliyay Ansu Fati goolka saddexaad ee Barcelona waxa ciyaarta 3 gool iyo eber ka dhigay Philippe Coutinho goolka afaraad waxa Barcelona u dhaliyay laacibka Badro goolka shanaad ee Barcelona waxa soo xiray Ansu Fati ciyaarta guud ahaan waxay ku soo dhamaatay 5 gool ee ku badisay kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa ku hogaaminaysa groupkeeda 3 dhibcood goolal ayuu ku heesaa kooxda Juventus hal ciyaartay 2 gool eber ku badisay ciyaartii xal waxa roosoo qaatay BK kaasoo sheegi doono Barcelona lugtii la ciyaari doonto kooxda Juventus sidoo kale Messi ayaa noqday 16 sano inuu goolal ka dhaliyo tartanka xiisaha badan UEFA Champions League saaxiibayaal aragtiin waad ka soo dhiibi kartiin guushii xal ee Barcelona sidoo kale qaab ciyaareedka Philippe Coutinho waad ku maasintiin daawashada muuqaalkan intaan muuqaalka xiga isku arki doono sidaas iyo nabadgelyo.